قعي على علمك ودواء عبشوني واحتري حدات هاي روح عديبا انتو امريقا جيرو حدان أغلقا جيري ميي عرضا قرن إنا تهي روح لها حدان تهي روح عكيرا حدان علا وهلهي ميا عبسي لغا بحاد روحي للغبن على شوفو كتبي حداد عيلك بكوري على اليوم اكو دنبا عقدة ميي واحتري حداد هاي عامدها امريقا جيرو حدان أغلقا جيري ميي عرضا قرن إنا تهي روح لها حدان تهي روح عكيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعن أو ونكسن دمانتين ملوى جوكتان warbaahinta Southern Media Corporation ayaa halkan waxa ay ugu soo gudbin doontaa xog muhiim ah oo laga helay dad si aad ah ugu dhow hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. xogtani ayaa waxa ay sheegaysaa in hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen tan iyo xilligii sida macmalka loogu dhiibay maamulka Koonfur Galbeed ay soo wajahayaan ama maalmaha soo socda ay soo wajahi doonaan culeysyo badan ama mowjado badan oo kaga imanaya magaalada Muqdisho. sida aynu ka soo xiganay ila ku dhow Cabdicasiis Laftagareen ayaa inoo xaqiijiyay in ay soo food saartay cabsi siyaasadeed kadib markii hogaamiyihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan Shariif Shaafto uu ka warhelay in uu ka wada magaalada Muqdisho iyo waliba caasimadda kumeel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed abaabul siyaasadeed oo xoogan kaasoo loogu ololeynayo sidii lagu wiiqi lahaa awoodda Cabdicasiis Laftagareen iyo Shariif Xasan ayaa ka dhaxaysa xurguf siyaasadeed oo aad u weyn. abaabulkani oo wada Shariif Xasan ayaa ah sidii dib ugu soo noqon lahaa hogaanka maamulka Koonfur Galbeed isla markaana uu qadka uga saari lahaa Cabdicasiis Laftagareen. xogtani ay heshay warbaahinta SMC ayaa waxa ay sheegaysaa in tiro xildhibaano ah oo Cabdicasiis soo eryaday inay gacan saar la leeyihiin Shariif Xasan isla markaana ay horboodayaan abaabulka dhanka Cabdicasiis Laftagareen ee ka socda magaalada Baydhabo iyo waliba magaalada Muqdisho. xogta ayaa waxa intaasi ku daraysaa in maalinta berita ah ay qaarkood tagi doonaan magaalada Baydhabo ayagoo qaarkoodna halkaasi looga kireeyay aqalo ay degaan halka ay kuwa kalena halkaasi hore u deganaayeen ayadoo muhiimadooduna ay tahay sidii ay u kala furfuri lahaayeen maamulka oo hogaamiya Cabdicasiis Laftagareen isla markaana xildhibaanada halkaasi ku sugan ay naftirkooda ugu abuuri lahaayeen qalalaasa siyaasadeed. Cabdicasiis Laftagareen ayaa garab ka haystay dawladda waqtigeeda sii dhamaanayay ee uu hogaamiyaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse markii dambena uu tuhun soo kala dhaxgalay Farmaajo iyo Cabdicasiis Laftagareen shirkii Dhuusamareeb 2 walow aysan waxba soo kordhinaynin khilaafka u dhaxeeya labadaas shakhsi maadaama dawladda naftirkeeda ay gabagaba sii marayso. Cabdicasiis Laftagareen ayaa wax kalsooni ah ka dhaxlahayn bulshada Koonfur Galbeed tan iyo xilligii isagoo la sida la keenay magaalada Baydhabo si loogu dhiibo hogaanka maamulka Koonfur Galbeed taasoo keentay in dad badan ay ku dhintaan dad badan loo xiro qaarkoodna ilaa maanta ay u xiran yihiin. mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyo Cabdicasiis Laftagareen ayaa awood u sheegtay xilligaasi shacabka Koonfur Galbeed iyo waliba musharaxiinta ugu cadcada tartanka hogaanka Koonfur Galbeed taasoo keentay in xabsiga la dhigo Sheekh Muqtaar Roobow isagoo ilaa maanta si sharci darro ah ugu xiran magaalada Muqdisho isla markaana xarigiisa ay ka dambeeyaan sida la sheego dawladda federaalka iyo Cabdicasiis Laftagareen. Cabdicasiis ayaa waxa kale oo xurguf siyaasadeed kala dhaxaysa inta badan xildhibaanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ka tirsan baarlamaanka federaalka taasoo Cabdicasiis marar badan ugu goodiyay in aysan dib dambe u soo laaban doonin marka la gaaro xilliga doorashooyinka taasoo la filayo inay dhacdo horaanta sanadka 2021. isku soo wada dub wax garad la'aanta siyaasad xumida iyo balan xumida Cabdicasiis Laftagareen ayaa keenaysa in uu yeesho cadow badan oo kala dagaalama dhinacyada siyaasadda isagoo maanta xaalkiisu joogo in uu hoos fariisto qayb yar oo ka tirsan beesha uu ka soo jeedo isagoo inta kalena kala dhex dhigay xolaad iyo dagaal. warbixinadan ma noqon doonaan warbixinadii ugu dambeeyay aynu ka keenno maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba guud ahaan deegaanada reer Koonfur Galbeed. dhawaan waxaynu ka hadli doonaa oo aan naftirkeeda aan dul istaagi doonaa gobolka Shabeellaha Hoose dhibaatooyinka ka taagan waxaynu kala dul istaagi doonaa gobolka Baay iyo waliba gobolka Bakool. tan iyo intaynu kulmi doonno maalmaha soo socda kale waxaynu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.